cilmiga qaabka loo barto iyo sida darajo looga gaaro waxyaabo badan oo dadka ka saacida baa jira, waxyaabo badan oo laga maarmaanana waa jiraan. waxa weeye qofku in aqoon uu yeesho miisaaman. dadkii waxaa loo kala saaray dadkii diinta bartay iyo dad cilmiga adduunka bartay baa loo kala saaray. labaduna ma kala saarna. qofkii ugu horreeyay adduunka isku dayay inuu duulo Abbas ibn Firnas buu ahaa. qofkii ugu horreeyay isku dayay inuu duulo wuu duulay, laakiin diyaaraduhu maanta markay degayaan jaamacaddii ugu horreysay adduunka laakiin way burburtay taas. laakiin jaamacadda ilaa maanta furan oo adduunka ugu qadiimsan magaalada Fes oo Maraykanka ku taala Morocco waxaa la yiraahdaa al-Qurawiyiin. gabar muslimada ah furtay oo la oran jiray Fatima al-Fihri bana ar-Rahman haleey allama al-Qur'an khalaqa al-insaan allamahu al-bayan. sidii wax loo cadeyn lahaa buu baray. og leh baan idinka siinayaa inaad iska ilaalisaan waxaas. dadkii waaweynaa iyo dhalinyaradii iyo culimadii iyo raggii iyo dumarkii iyo caruurtii social mediaas la tagay oo baabi'iyay. marka iska ilaaliya cilmigaas aan faa'iidada lahayn. cilmiga faa'iidada leh dee su'aal kama taagna cilmiga diinta ugu sareeya. diinta islaamka la barto oo qofku uu ogaado sababta adduunkan uu joogo oo waxa loo khalqay uu ogaado baa ugu sareysa. waxaa ku xigta midaan kale adduunka aan ku nacfisanayno oo ama dhakhtar qofku noqonayo ama injineer noqonayo ama sheekh caalim oo dadka diinta u gudbiya uu noqonayo ama macallin iskuul uu noqonayo ama makaanik uu noqonayo ama taariikhyahan uu noqonayo ama siyaasadda uu qofku baranayo ama dhaqaalayahan uu noqonayo. taas baa iyaduna waxay noqonaysaa midii labaad. taa haddii aan ka gudbo cilmiga qaabka loo barto iyo sida darajo looga gaaro waxyaabo badan oo dadka ka saacida baa jira, waxyaabo badan oo laga maarmaanana waa jiraan. waxyaabaha laga maarmaarka ugu horeeya waxa weeye qofku in aqoon uu yeesho miisaaman. aqoontiisu inay miisaaman tahay. hadduu qofku yiraahdo diintaan baranaya oo uu yiraahdo anoo quraanka baran baan cilmi xadiid kaliya baranaya ama uu yiraahdo fiqhigii iyaan baranayaa iyo taariikhda islaamka anoo luqadii carabiga baran mana macquul ma aha. qofkaas ma miisaanna aqoontiisu. sidoo kale qof kasta oo bini aadana waxaa ku habboon in uu barto aqoon kala gedisan uu yeesho oo qofkii diinta markuu barto uusan is oran diintii baad baratay cilmi kale inaad baratid uma baahnid. oo qofku uu barto taariikhda wax ka barto, xisaabta wax ka barto, sayniska wax ka barto, juqraafiga wax ka barto. sababta waxaasoo dhan diintii baan ka maarmin. cilmigaasoo dhan diintu ka maarmi mayso. marka waxaan doonayaa in aan sababta taas aan xoogga u saaray iyo runnimadeeda idinkuba waad ogtihiin inay run tahay. laakiin maanta markii la eego muslimiintii hore taariikhdii baan aaday hadda. muslimiintii hore oo taariikhda markii la eego iyo muslimka maanta jooga ama 200 lasoo dhaafay aan dhaanay waxyaabaha ugu weyn oo muslimka daciifka ka dhigay waxa weeye cilmigii diinta markii la barto barigi hore oo qofku diinta ku takhasuso buu cilmiga kalena baran jiray. sababtoo ah diintiiba waxay ku dhiirigelinaysaa inuu xisaabtii barto oo sayniskii barto oo juqraafigii barto oo taariikhdii barto. quraankii iyo xadiiskii waa ku dhiirigelinaya. markaasuu waxoo dhan baran jiray. qofka diinta bartay cilmiga kale waxba uguma fadhiyo, way fududahay. qofkii quraanka iyo xadiiska iyo fiqiga yaqaan inuu xoogaa yaroo saynis barto ama in yaroo xisaab barto ama in yaroo physics barto wax cilmi ah ay ugu dhisan tahay male, waa u fududahay. maskaxdiisa furan. culimadii hore labada israacsiin jireen way isku dari jireen. 200 sano la soo dhaafay ama 250 sano la soo dhaafay waa la kala saaray. qayb badan oo ka midana dadkii doonayay muslimka inay gumaystaan baa ka shaqeeyay. dadkii waxaa loo kala saaray dadkii diinta bartay iyo dad cilmiga adduunka bartay baa loo kala saaray. labaduna ma kala saarna. ayaga gaaladay u kala saaran tahay malaha. annagu haddaan muslim nahay nooma kala saarno. cilmi waa cilmi. waxay keentay marka xoogaa inaad moodid cadaawad inay dhex marayso dadkii cilmiga kala bartay oo ninkii dhakhtarka ahaa ama physicska ku takhasusay ama xisaabta mathematics ku takhasusay inuu isu arko inuu ka wanaagsan yahay qofka diinta bartay
oo laga yaabo dhalinyarada inay dhahdo war haddaan diinta barto maxaan ka faa'iidayaa masaajid baan imaam ka noqonaya inay yidhaahdaan oo xoogaa la yaso ama ay dhacdo kii diinta bartay inuu yidhahdo war kuwaas calmaani bay noqdeenoo is afgaran mayno meeshii labada la isku dari lahaa marka qofka muslimka ah waxaa markuu ogaado waxa uu yahay buu fahmi karaa cilmiga nooca uu u baahan yahay maanaa qofku markuu ogaado waxa uu yahay waxaan ka wadaa waxaan ingiriiska lagu yidhaha identity aqoonsi soo maaha af soomaaliga waa aqoonsi qofku markuu aqoonsigiisa yeesho aqoonsigaagu muxuu yahay adiga muslimka ah aqoonsigaagu muxuu yahay aqoonsigaagu ma cabdi baa ma faarax baa ma soomaali baa ma afrikaan baa ma carab baa ma muslim baa muxuu yahay maanaa dhalinyarada waxaan ku idhaahdaa kutub markii la qoro soo cinwaan ma laha kutubka cinwaan buu leeyahay title buu leeyahay subtitlena waa leeyahay subtitle maxaa la dhaha alcinwaan alfarqi soo maha af carabiga alcinwaan iyo alcinwaan alfarqi buu leeyahay soo maha annaga muslimiinta markaan nahay cinwaanka iyagu waa muslim weeye subtitleka iyaguna ama bakistaani noqo ama soomaali noqo ama maraykan noqo adigay ku taalla subtitle marka subtitleka waa ku kala gedisnaan karnaa laakiin titleka iyaga cinwaanka iyagu waa muslim marka maadaama aan muslim nahay oo aqoonsiga iyaga muslim nahay markaanu cilmiga raadinayno yaan ku dayanaynaa oo qudwo noo ah waxaan ku dayanaynaa khasab rasuulka sala allahu alay slam ee asxaabtiisii iyo intii ka dambeysay iyo intii kasii dambeysay iyo intii kasii dambeysay soo ma maadaama ay sidaa tahay waa inaan baranno taariikhdii dadka yaga aan ku dayan lahayn haddii dhalinyarada cilmiga iskuullada barata idinku iskuullada caadiya waad soo dhigateen haddii la weydiiyo physics ama la weydiiyo mathematics ama science la weydiiyo oo la yidhaahdo yaa waxaan soo saaray oo Isaac Newton baa wuxuu keenay gravity iyay ku dhahayaan soo maha oo physicska iyo keenay Einstein baa wuxuu keenay relativity buu keenay way garanayaan waxaas laakiin haddaad ku tiraahdid dadkii waxaan ay ka yimaadeen ayaga ka hor oo ay ka akhristeen sheeg oo gaaladuna og tahay oo aqoonsan tahay oo kutubtooda ay ku qoran tahay sheeg dhalinyarada badankoodu ma garanayaan idinku maadaama aad diinta barataan waxaan qiyaasayaa qaar badan oo ka mid a inaad taqaanaan marka aqoonsigiinna iyo kudayashadiinnu waa dadkaas wey ma aha Isaac Newton malihiyaan la akhrisan wixiis waa loo baahan yahay alxikmatu daalatu lmu'min rasuulka sal ly slam baa yidhi xikmaddu waa aqoonta soo maha qofka muslimka ay ka maqan tahay meeshay taallaba isagaa xaq u leh soo maha isagaa xaq u leh meel walboy taallo ama qof gaalay ha keeno ama qof muslina ha keeno laakiin qudwada aan ku dayanayno waa kuwa muslimka ah tusaalooyin bini aadamku berigii hore xisaabta la qoro 1 ilaa 9 baa dadku wax ku xisaabsan jiray oo kadib boqolaal ama kun laga dhigay raqamka eberku ma jiri jirin raqamka eberka ah ma jiri jirin raqamka eberka ah markuusan jirin xisaab badan lagama shaqayn karo sababtoo eberku waa muhim muslimiintu aliftay oo eber ku dartay xisaabahan hadda iskuullada aad ku dhigataan oo fractionka ha noqoto jajabka af soomaaliga loo yaqaan fraction ama aljabra ha noqoto ama trigonometry ha noqoto waxaasoo dhan muslimiinta aliftay waxaan qiyaasayaa idinkoo dhan waa taqaanaan alkhawaarismi maanaa ninkii aljabrada alifay oo kutubkii aljabrada uu qoray la oran jiray alxisaab aljabar walmuqaabalaat la oran jiray alxisaab aljabar walmuqaabalaat kutub la yidhahduu qoray oo xisaabta aljabrada isaga ka hor xisaabta fractionka muslimku markay samaynayeen maxaa ku kalifay diintay ka barteen inay fraction qoraan waagii hore xisaabta jajabka bini aadamku ma ay aqoon ma ay qori jirin muslimka ka hor marka xisaabta jajabka ah qur-aankay ka akhristeen soo maaha muslimiintu oo dhaxalkiibaa waxaa laga hadlayaa nus iyo thuluth iyo rubuc iyo khumus iyo sudus waxay noqotay marka qaab xisaaba inay u sameeyaan si dhaxalka loo xisaabiyo oo calculation loogu sameeyo kabacdi aljabra loo gudbay trigonometry marka alkhawaarismi oo magaciisa dadka hadda gaaladu waxay u yaqaanaan algorithm magaciisa markay laatiin ka dhigeen kutubtiisii way haystaan markay ka dhigeen magaca luqadda laatiinka algorithm hadda markaad engineering anugu markaan maraykan tegey muddo dheer ma ogeyn algorithm in alkhawaarism laga wado engineering markaad baranaysid ama computer science aad baranaysid
waxaa lagu oranayaa algorithm soo qor waxa weeye wadadaad mari lahayd inaad xal gaartid 1 2 3 4 aad mari lahayd waxaa loo yaqaanaa algorithm markaad computer science programming qoraysid waxaa lagu oranayaa algorithm qor waa alkhawaarismi magaciisi algorithm qor baa lagu oranaya markaas algorithm baa alkhawaarismi qor ayadoo lagu yiray la mid ah dhowr sano kadib baan ogaaday algorithm inay alkhawaarismi ka wadaan cilmigan hadda ay adduunku ku shaqeeyo oo cilmi baarista lagu sameeyo research barigii hore bini'aadamku research may aqoon researchigu wadda loo maray leedahay methodology baa la dhahaa methodology bay leedahay researchiga loo maro cilmi baarista methodologyga qofkii qoray waa ibnu sina waddada loo maro ibnu sina buu ahaa bini'aadamku hadda waxyaabaha ay ku faanaan waa daaweynta iyo surgeryga gaaladu hadda maanta waxay u aqoonsan yihiin aabbihii surgeryga alzahraawi inuu yahay abulqaasim alzahraawi maadaama abulqaasim la yidhaahdo kutubtooda waxaa ugu qoran abukasis abulqaasimkii waxay ka dhigeen abukasis haddaa ingiriis ku baaraysid magaciisa abukasis baad baaraysaa waa the father of surgery manaa 1,000 iyo dhowr boqoloo sano ka hor buu wuxuu sameeyey qalabka surgeryga lagu sameeyo suturiska iyo scalpelka iyo tongue depressorka waxyaabahan hadda dhakhaatiirtu isticmaasho oo ilaa maanta la isticmaalo isagaa alifay oo qalabkaa sameeyey alzahraawi abulqaasim alzahraawi qofkii ugu horreeyey adduunka isku dayey inuu duulo cabaas ibnu firnaas buu ahaa qofkii ugu horreeyey isku dayey inuu duulo wuu duulay laakiin diyaaraduhu maanta markay degayaan saynta dambe bay u baahan yihiin haddayse saynta dambe lahayn diyaaraddu ma degayso baalal keliya leedahay isagu baalashii buu samaystay laakiin sayntii dambe ma samaysan ma uu dhiman laakiin wuu soo dhacay marka ibnu firnaas buu ahaa ninkaas jaamacadda adduunka ugu qadiimsan oo ilaa maanta furan jaamacadda horta tii adduunka ugu horreysoo baaba'day zaytuuna waagii umawiyiintii baa la furay oo waxay ku taalleen magaaladan alxaraan oo hadda ku taalla xaraan oo hadda ku taalla turkiga xuduudka suuriya 15 kilomitir bay u jirtaa bishii 8aad sanadkan baan tegey alxaraan magaalada xaraan oo ku dhashay sheekh ibnu taymiya axmed alxaraani soo lama dhihi jirin meeshuu ku dhashay weeyey august sanadkan bishii 8aad baan tegey meeshaas jaamacaddii ugu horreysay adduunka laakiin way burburtay taas laakiin jaamacadda ilaa maanta furan oo adduunka ugu qadiimsan magaalada fas oo maraykan ku taalla morocco waxaa la yidhaahdaa alqurawiyiin gabar muslimadaha furtay oo la oran jiray faatima alfihri gabar muslimadaha samaysay marka waxaasoo dhan qofku inuu mechanic adduunka haddii la mechanics wax mashiin keligii shaqaynaya oo iswadaya oo aan gacanta lagu wadayn qofkii ugu horreeyey aljazari buu ahaa oo muslim soo ma oo gaaladu way u aqoonsan tahay annagii muslimka ayn ma naqaan gaaladii baa taqaana oo qoraysa reer galbeedkii baa qor annagii muslimka ayna kama warqabno waxaas ma ogin marka waxaasoo dhan tusaalooyin baan idin siiyey laakiin idinkaa la idinka rabaa inaad sii baartaan albaruni wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo adduunka 800 buu noolaa sanadkii 800 1,200 oo sanaa ka soo wareegtay jaamacadda hadda idiin sheegay taariikhdeeda 859 baa la furay alqurawiyiin ilaa maantay furanta fas bay ku taal jaamacadda labaad oo adduunka la furo oo ilaa maanta furan alazhar weeye sanadkii 920 baa la furay 1,100 sanay furanta الأزهر كن يبقول سنة بفرنتا جامعتها يوروب يا مريكان كويا ugu qadiimsan 500 sano ama 600 sano jiraan mareykanka ta ugu qadiimsan 180 sano jirtaa kaliya 180 sano marka albaruni waa qofkii adduunka ugu horeeyay qofkii wuxuu ahaa xisaab isagoo isticmaalaya oo safar gelin buu xisaab wuxuu ku calculation ku sameeyay wareegga dhulkaana ku noolnahay wareegiisa waa xawaali 25,000 oo kilomitir weey dhulka wareegiisa maanta markii si sax loo cabiray 50 kilomitir buu khalday kaliya xisaab buna isticmaalay 50 kilomitir buu khalday isagoo xisaab albaruni ninkii la oran jiray dadkaas oo dhan maxaa idin kugu sheegay waxay isku wadeen waa wax af ingiriiska waxa lagu yiraahdaa waxay ahaayeen polymath waxa weeye qof aqoon kala gedisan leh cilmigii diinta yaqaaneen oo kutub diin ay qoreen physics bay yaqaaneen mathematics bay yaqaaneen history taariikhdii bay yaqaaneen astronomy bay yaqaaneen cilmigaas oo dhan bay yaqaaneen iyagoo cilmigaas oo dhan yaqaanay culumad diinana ahaayeen Soomaa idinka dhalinyarada marka dadkaas inay qudwo idin noqdaan
oo waxaan idinka rajaynayaa aad isku dhex wadaan diinta barashadeeda inaad cilmigii kalena ku dartaan. cilmigu barashadiisu waa waajib buu ku yahay qofka muslimka ah maalinta uu dhasho ilaa maalinta uu dhinto. mana ma dhihi kartid anigu jaamacad baan soo dhigtay de hadda xoogaa 30 baan gaarayo waa guursadayo cilmi dambe ma baran karo, taasi shaqayn mayso. marka waxa weeye muhiimadda cilmiga waa wax laga maarmaan laakiin cilmiga miisaaman culumadii hore oo muslimiinta inaan dib inta ugu noqono ku dayanno oo wixii ay barteen qaabkay u barteen oo kale annaguna aan u baranno oo quraanka intaan dib ugu noqono oo quraanka waxa weeye cibaadadii iyo wax walbaan ka baranaynaa laakiin dhiirigelin cilmiga ahna waa ku jirtaa. dhiirigelin cilmiga aayadaha quraanka markaa akhridid cilmiga lagu dhiirigelinayaa adduunkan koonkan inaad baartid oo cilmi baaris ku samaysid. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. معنى إركان إيه هيسكدوا المرن إركان يقول كان وحي يالله إيه وحي كسم يسين إنتاد إكتد بالبارس كسمه آيات باتك قادنيسا واحد أوغانيسا عظم هذا إلهي إيه سببت أديك اللغو خلقي بعد أوغانيسا مركاد إكتد إركان يقول إيه وحي كسم يسين إنتاد علم بارس كسم يسين بالدونيا markaad eegtid quraanka waad la yaabaysaa macnaha qoraalkii iyo akhriskii iyo iqra iyo waad ogtiin iqra akhri baa lagu yiri haddana callama bilqalam qoraal wax akhri oo wax qor lama rabo inaan wax qor akhrina kaliya ama afka kaliya aan ka hadalno. annagu Soomaali oral society baan nahay inta badan waa afkaan wax ka sheegnaa aad wax uma qorno. aniga lafteedu ciladaas waa leeyahay marka inaan ciladaas la dagaalano oo qoraalka badino inaan isku dayno baa loo baahan yahay. qaybta labaad oo muhiimka ah dadkaas aan ku dayanayno oo cilmigu uu yahay oo annagu aqoonsiga iyagu muslim yahay waxaa ku xigta aqoonsiga iyaga kale oo ah inaan nahay Soomaali baa ku xiga kaasaa ku xiga Soomaha aqoonsiga iyaga kale oo subtitle-ka iyagii weeye Soomaha waa cinwaanul farciga iyagii weeye Soomaali inaan nahay oo af Soomaali ku hadasha muhiimad gaar ah iyaduna leedahay. macallin Siciid baa idin sharxi doona ayadana muhiimadaas ay leedahay mana quraanka ayada ah mana ar-rahmaan haleey allama al-qur'aan khalaqa al-insaan allamahu al-bayaan sidii wax loo cadeyn lahaa buu baray ilaahay inta ummadda khalqay kama dhaqaaqin allamahu al-bayaan waliga ma u fiirsatay in laga wado luqadda aad ku hadlaysid waxbaad aragtay wixii aad aragtay say iigu sheegaysaa haddaad luqadii lagu sheegi lahaa aadan garanayn. reer miyigu markay sahamiyaan Soomaaliya waxay yiraahdaan halkaasaan maray roob baa ka da'ay taaga halkaas ay ahayd geedka noocaas ah ku yiil waxbuu cadeynayaa Soomaaliya. adigii waxaa lagu yiri wax soo bar cilmi baaris baa samays haddaadan afkaagiiba aqoon adigu u dhalatay haddaadan aqoonin maxaa wax ku cadeynaysaa afkii aad u dhalatay oo ma taqaanida ma carabi iyo ingiriis baa wax ku cadeyn kartaa